xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Mareykanka ayaa ku dhow in uu burburo ku dhawaad 3 toddobaad militariga Turkigu waxa ay weerar ku hayeen dagaalyahaniinta Kurdiyiinta Suuriya waa talaabadii ugu dambeysay ee khilaaf iska hor keenaya labada dal ee NATO Usmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya saaxiibtinimada isboortiga way ka fiican tahay tan siyaasadda marka la barbar dhigo muddada dheer Turkiga iyo Mareykanka ayaa Istanbul ku wada tababaranaya koox kubadda cagta ee Mareykanka loolanka halkan waa mid saaxiibtinimo kana yar midka u dhaxeeya dalalkooda dalalkan isbahaysiga NATO ayaa isku khilaafsan arrimaha Suuriya siyaasadda iyo xuquuqda aadanaha waxayna joojiyeen sanadkii hore viisooyinka waxa halkan laga dareemayaa xiriir khilaaf leh jawiga siyaasadeed hadda ma ogid waxa saxda ah ee dhici doona waxaana filayaa in hogaamiyaasha labada dal ay dabeecadooda degdeg u kacdo sida hore loogu arkay xayiraadii fiisaha marka laba wadan oo waaweyn hogaaminayaan laba qof oo caqliyada noocan leh ma saadaalin kartid waxa bari ama bari dambe dhici doona Turkiga waxa uu hadda duqeynaya dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya ee Mareykanka hubeeyay Ankara waxaa looga arkaa argagixiso Washingtonna waxay saaxiib kula tahay dagaalka kooxda la baxday dawladda Islaamka khatarta tooska uga dhalan karta labada dal ee ugu xoogga weyn NATO ayaa kordhaysa dib kuma qabno Mareykanka isku si ayay dhibaatada noo gaartay dagaal ayaan wada galnay 30,000 ayaa wadankan ku dhimatay sababo la xiriira urur argagixiso marka aan fiirino Mareykanka waxa ay siinayaan rasaas qubaro ciidamada Mareykanka way tababarayaan marka waxaan filayaa inay tahay halkii aan wax ka bilaabi lahayn khilaafka ayaa sii fogaaday markii wadaadka Mareykanka ku nool Fethullah Gulen lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay afgambigii dhicisoobay iyadoo ay adag tahay in la dhiibo wadaadka waxay Turkiga xireen shaqaale diblomaasiyiin Mareykan ah taas oo ka caraysiisay Washington waxayna saadaasha codaynta muujinaysaa in 3 meelood 2 meel halkan looga arko Mareykanka khatarta ugu weyn ee Turkiga xiriirka muhiimadda u leh amniga iyo beecmushtarka ayaa halkii ugu xumaa 10 sano joogo ardayda Turkiga ee rajaynaya inay Mareykanka wax ku bartaan ayaa si walwal ula socda khilaafkan baahsan ee qabsaday marka aad ruux ku tiraahdo Mareykanka ayaan wax ku baranayaa gaar ahaan qaybaha bari ee Turkiga ma jeclaysanayaan taas waxay u maleynayaan inaad tahay qof dalkiisa qiyaamaya marka aan ku soo laabano goobta kubadda cagta tababar ayay sameynayaan Mareykanka iyo Turkiga balse waxa adag in hogaamiyaashooda ay xaliyaan khilaafkan